daawadayaal waxaan si kooban isu dul taagaynaa sida loo sameeyo lacagta warqadda ah iyo hanaanada kala duwan ee samaynteeda loo maro. Samaynta lacagta warqadda ah waxaa ugu horreyn hindisay dalka Mareykanka 1861 maadaama oo ay isticmaalka lacagta warqaddu ku fiican tahay adeeg bixinta mushaharada iyo kala socodsiinta suuqa. Ansixinta naqshadeynta ugu dambeysa ee lagu soo saarayo lacag cusub waxaa gebi ahaanba dalka Mareykanka ansixiya xoghayaha guud ee khasnadda dhexe. Aragtida lacagta lagu sawirayo birta dusheeda iyo daabacadeeda ayaana mas'uul ka ah naqshadeynta walxaha lacagta warqadda ah ee Mareykanka soo saara. Tallaabada koowaad ee lacag sameyntuna waxay ka bilaabataa naqshadeynta lacagta. Naqshadeynta lacag cusub waxay qaadataa dhowr sano waxayna martaa gacmo fara badan. Kadib marka naqshadda la sameeyo, tallaabada xigtana waa sawiridda lacagta, taasoo uu farshaxaniste loo tababaray sawiridda lacagta ugu yaraan 12 sano iyo ka badan uu warqad ku dul sawiro naqshaddii lacagta ee lasoo sameeyey, isagoo isticmaalaya gacantiisa si taxaddar lehna u raacaya naqshaddii islamarkaana aan waxba isdaba marinaynin. Marinada iyo qaabka farshaxanayntuna ma aha kuwo qurux oo keliya looga jeedo, waa kuwo macno weyn xambaarsan oo aysan dhanka kale macquul ahayn in la koobiyeeyo. Tusaale ahaan, $1 dhabarkiisa waxaa ku taala shaambad weyn oo macno ahaan u taagan asalkii 13 gumeyste oo ay ku jiraan 13 xidigood ee gorgorka iyo 13 jid ee pyramidku. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay bir ku dul samaynta lacagta. Marka la dhammeeyo farshaxanaynta lacagta waxaa lagu maydhaa biyo deionaysan waxaana lagu qooyaa walxo potassium iyo curiyaal kale ka kooban oo midabka oranjiga ah leh, taasoo birtan lacagta lagu dul sawiray ka ilaalisa dakhowga. Kadibna birtii lacagta lagu dul naqshadeeyey waxaa lagu dhex ridaa taangi ay walxo kiimikaal ah ku jiraan muddo 22 saacadood ah, iyadoo xilligaas lagu daboolo albaab danabeysan. Waxaana arrintan xaqiijiyay farshaxaniistayaashii oo haddii uu wax yar oo khalad ah ama isdaba marin ah halkan ka dhaco, nidaamkii oo dhan halkaas ayuu ku buri, mana sii soconayso shaqadu waxay noqon in haddana dib loo soo bilaabo. Ugu dambeyn, birtii lacagta lagu dul daabacay waxaa laga dhigaa ama loo koodeeyaa hal dahadh oo leh cufnaanta timaha aadamaha oo kale. Lacagta waxaa asal ahaan samaynteeda laga bilaabaa warqad, balse waxaa ugu dambeyn laga daabacaa walxo kala duwan kuwaasoo 75% ah kaadhin, 25% ah laynin. Khadda laga sameeyo lacagta oo qodobka afraad. Khadda gaarka ah ee loo isticmaalo samaynta lacagta waa mid magnadaysan, midabeysan, haddana la sooci karo. Tusaale ahaan, midabka cagaarka ah ayuu waddanka Mareykanku u doortay lacagtiisa dollarka ah, kaasoo cilmi nafsi ahaan xasilooni iyo horumar tilmaama. Tallaabada shanaad ee ay wareegga lacag samayntu marto waa baadhida. Kadib qallajintii 72 saacadood qaadatay, lacagta cusub ee lasoo saaray waxay martaa nidaam baadhid physical iyo mechanical-ba ah, taasoo qayb weyn ka qaataan aaladaha casriga ah ee kombiyuutarada iyo kaamiraduhu. Qodobka lixaad ee ugu dambeeyana wuxuu yahay xidhxidhid iyo qaybin. Ugu dambeyn, lacagtii lasoo saaray waa la xidhxidhaa, la habeeyaa, waxaana loo gudbiyaa qaybta kaydka federaalka oo iyaguna bangiyada u sii qaybiya.